وفتي hogaaminaya murashaxa ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ambassador maxamed cali oo cabdi ayaa maanta kormeer ku tagay deegaanada Marawa oo hoos yimaada gobolka Sanaag kormeerkan oo jeedkiisu ay qaadashada kaararka codbixinta waxaana murashaxu kula dardaarmay shacabka deegaanka gobolka Sanaag inay qaataan kaararka codbixinta waxaana hadaladiisi kamid ahaa sidaan hore fariinta ugu dirnay dadweynaha gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergabo reer Marawa waxaan leenahay yaanu idin saagin waqtigu yaanu idin seegin وعشان عشوك اللي رايستان شنتو مركي دماته وإذن كو أتكان دونتان إن دقمة تكتان عرقابة إن تكتان مركا أفر عشاء عدي دربا ما أنت وإذن دافسا وظهر كيبا لتشوغا كفايدة إستا يانو إذن دافين كارك مركات قادتان حفظة وميلدقة وإلاشدة مدات هاي سنة سان وحقيني يانو إذن دا إذن كهالابين مركا وحان إذن تغينا نبض intaasi kadib waftiga waxay kormeer ku tageen buurta caanka ee loo dalxisay Daalo oo haatan waqtigan dayac badan ka muuqda halkaasi waxa hadallo kooban ka soo jeediyay xubnihii waftiga ku helinayay murashaxa iyagoo eedeymo kulul u soo jeediyay wasaaradda dalxiiska oo gabi ahaanba ay ku tilmaameen mid ka gaabisay dib u habeynta buurtan caanka ee Daalo waxaana hadaladoodii kamid ahaa waftiga hogaaminayo musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadani halkan umu iman dalxiis laakiin waxa nagu dhow wasijeedkeena ah goob aan ugu talagalay inaan soo booqano sida u soconayso deegaanka aan mari doono insha Allah inaan wacyi gelin dhinaca kaar qaadashada ah aan u siiyo musharaxa madaxweyne ku-xigeen saaka waxaan joognaa buurta Daalo umaana laga runtii dalxiis laba goobood oo buurta Daalo ku dhow ayaan soo kormeernay qaabka ay u socdaan kaar qaadashada runaantii gobolka Sanaag aad baa lagu soo dhaweeyay xisbiga wadani si wanaagsan kaarka u qaadanay way muuqataa codkoodana waxa rajaynaa inay wadani u hiliyaan maanta anakoo goobihii Daalo hoosteeda oo dhan aanu soo eegaynay oo kaararka sidii ay dadku u qaadanayaan aanu eegaynay waxaanu u soo baxnay buurta Daalo sababtaan ugu nimino waxa weeyaan wadamada maxay ahayd jaarkeena haddaynu Ethiopia aanu ka qaadan iyo Kenya lacagta ugu fara badan ama budgetka ugu fara badan wuxuu kaga soo galaa waa dalxiiska laakiin waxa nasiib darro ah oo ayaan darro ah maanta dawladda joogtay in canaanta ma aho wax yar baa u haray 9 habeen baa u haray 9 habeenna waxa ku dhameysteen inta iyagu is eryanayeen isku mashquulsanaayeen waana dhibaato ku dhacday dadka Soomaaliland tacsi ka soo gaadhay weeyaan dhibaatadaasi meel walba saasay u dayacan tahay meelahan waa meelihii dalxiiska iyo takhliga u badan iyo lacagta u badan ee dadka ka soo gali lahayd gabagabadii halkaas waxa hadalka soo afbeeray murashaxa madaxweyne ku-xigeen ambassador maxamed cali oo isagoo ballan qaaday in haddii talada dalka ay ku guuleystaan xisbiga mucaaradka ee wadani ay dhisi doonaan isla markaasna dib u habeyn ku sameyn doonaan goobaha caanka ee gobolka Sanaag ay kamid tahay buurtan caanka ee Daalo waxaana hadalkiisi kamid ahaa fulinayna baaqayagii ahaa in dadweynaha ku nool gobolka Sanaag ay qaataan kaarka oo meelihii goobaha ku dhow buurta aanu joognay marka waxaana u kaliftay inaanu soo eegno sida ay yihiin dalxiiska dalalka adduunka waxay kharash badan iyo waqti badan iyo hanti ku bixiyaan inay abuuraan goobo dalxiis waxaa nasiib darro ilaahay isagoo ina siiyey goobo ilaahay diyaariyey oo adduunyada ku yar noocan ku yaalo kale inay dayacnaadaan waa aragtaan waxa durdur bay ahaan jirta halkani ceelal baa laga sameeyey way dumeen way baabeen waxaan rajaynaynaa ilaahay dadkii markaan kursiga wadani ku fadhiisto inayna muddo yar dabadeed halkan dayacaas ka muuqan doonin ee ay noqon doonto meel adduunyada iskugu timaado waa yalla xasan Salebaan ayaa la biyam telefishinka caalamiga Somali News magaalada Ceergabo